Furitaanka filimka waxaa nala barayaa haweeney lagu magacaabo Andy oo markaas timid Morocco si ay ula kulanto mid ka mid ah asxaabteeda nin lagu magacaabo Booker. Booker wuxuu u sheegayaa shaqadoodii cusbayd ee badbaadinta hablaha lagu afduubay Koonfurta Suudaan. Wuxuu u sheegayaa in shaqadan loo qabanayo nin lagu magacaabo James Cobley kaasoo markii hore ka tirsanaa CIA-da. Andy markii hore way diiday in ay qabato shaqadan sababtoo ah waa arrin ka soo horjeeda xeerkoodii ahaa weligaa ha u shaqayn isla loo shaqeeyayaasha 2 jeer. Si kastaba ha ahaatee, Booker waxa uu ku qancinayaa in ay ugu yaraan tagaan hoteelka oo ay la hadlaan inta kale ee asxaabtooda ah, Nick iyo Joy. Markay yimaadaan hoteelka, kooxda dhammaan aad ayay ugu farxayaan inay kulmaan muddo dheer kadib. Dhanka kale waxay u muuqdaan inay diyaar u yihiin inay qabtaan shaqada, laakiin Andy kuma kalsoona James. Natiijo ahaan waxay go'aansadeen inay kulan la yeeshaan James si ay u ururiyaan macluumaad dheeraad ah oo arrintan ku saabsan. Muuqaalka xiga, Andy iyo Booker waxay James kula kulmayaan maqaayad maxalli ah, halka Nick iyo Joy ay dusha ka waardiyeynayaan. James wuxuu u sharxay howlgalkooda wuxuuna u caddeeyey sida ay u awoodaan inay wax ka beddelaan adduunka. Way ka shakisay Andy waxa ay weydiisay sababta uu James uga tagay CIA-da, taasoo uu kaga jawaabay in xaaskiisii buka ay geeriyootay ilaa iyo markaasna inuusan dib ugu laaban hay-adaas. Maqalka waxaas oo dhan, Andy inkasta oo ay dhegaysatay, ugu dambayntiina ogolaatay in ay qabato shaqada. Kadib ayada iyo kooxdeeda waxay u ambabaxeen hawshooda Koonfurta Suudaan oo waxaa lagu qaaday diyaarad helikobtar ah. Waxay yimaadeen halkaas fiidkii waxayna sugaan wakhtiga saxda ah si ay u soo galaan saldhigga afduubayaasha. Marka habeenka la gaaro, si aamusnaan ah ayay u soo galayaan halkaas ayayna ilaalo badan isku helayaan. Ugu dambayn waxay tagayaan qol dhulka hoostiisa ah. Markay imaadan qolkaas way la yaabayaan, wax la haystayaal ah kuma arkayaan qaybtaas hoose, taa beddelkeeda waxay ogaanayaan inay ku hoos jiraan qayaano oo CCTV lagala socdo. Taasina waxay ka dhigan tahay in ay ogaanayaan in la shirqoolay, laakiin ka hor intaanay iswaraysan, waxaa weerar gaadmo ah ku soo qaaday koox hubaysan oo militari xoog badan ah, rasaas ayaana la huwinayaa. Kooxdii Andy dhammaan dhulka ayaa la daadinayaa, waxay u muuqanayaan kuwa dhintay. Ciidanka militariga ayaa markaa dhabarka jeedinaya iyagoo aaminsan in ay dhinteen. Laakiin dhacdooyinka lama filaanka ah ayaa la arkayaa, afartooduba waxay bilaabaan inay ka bogsadaan dhaawacyadii weliba si degdeg ah, waxaa jirkooda ka soo baxaya rasaastii lagu dhuftay. Markaas ayay inta dib u soo kacaan ayaa militarigii rasaas iyo gacan loola tagayaa, si dhaqsaana waa loo baabi'inayaa. Waxaas oo dhan waxaa dusha kala socday James oo kamarada ka soo muuqday. Intaa kadib, kooxdu waxay ciidda ku aasayaan dharkoodii oo dhiig ka muuqday ka hor inta aanay tareen raacin. Intii ay socdeen doodahooda ku saabsan tillaabooyinka xiga, Andy waxay u sheegaysaa kooxda inay waajib tahay inay helaan James sababtoo ah James wuu garanayaa kuwa ka dambeeya shirqoolkan. Halkan waxaa lagu muujiyey in afartooduba yihiin dagaalyahano qarni iyo in ka badan jir ah oo leh awood bogsiino degdeg ah iyo dib u soo noolaasho. Kooxdani waxay adeegsadaan waayo aragnimadooda ballaaran si ay u ciribtiraan calooshood u shaqaystayaal iyagoo qaadaya howlgallo dad lagu caawinayo. Waa markii ugu horreysay ee la shaaciyo awoodahooda sirta ah. Isla mar ahaantaana, gudaha Afghanistan koox ka mid ah askarta badda ay hogaaminayso gabar lagu magacaabo Neil ayaa loo xilsaaray baarista koox dumar ah oo la rumaysan yahay inay maxaabiis u yihiin argagixiso. Intay su'aalaha weydiinayaan, naag aamusnayd ayaa baaq ugu tilmaamayso qol uu ku jiro nin argagixiso ah, waxaad mooddaa inuu isqarinayo. Ugu dambayn, askartii waxay jebiyeen qolka oo xabadka ayayna ka toogteen cadowga. Kadibna Neil baaris ayay ku sii samaynaysaa, laakiin ninkii argagixisada ahaa ayaa si baandhuunta uga dhaawacaya Neil. Dib ugu soo noqoshada tareenka, afartan dagaalyahan waxay si isku mid ah ugu riyoonayaan dhimashada Neil, taasoo ka dhigaysa inay dareemaan qof la mid ah inay tahay Neil.
Andy dabadeed waxay faraysaa saddexdooda inay helaan James inta ay raadinayso gabadha Neil lagu magacaabo. Dhanka kale waxaan ogaanay in Neil ay badbaaday markii ay ka soo toostay teendhada caafimaadka. Saaxiibadeed ayaa naxay markii ay ogaadeen in aysan wax garaafo ah lahayn. Ugu dambayn, madaxda ciidanka waxay go'aansadeen inay u diraan Neil dalka Jarmalka si ay baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo. Warkani waxaa ka murugootay Neil, markaas inta meel gees ah fadhiisatay, ayay bilaabaysaa dhegaysiga heesta ay ugu jeceshahay si ay isu dejiso. Laakiin ka hor inta aan loo wadin Jarmalka, Andy ayaa ugu imaanayso xirada. Neil waxay weydiisay aqoonsigeeda, taas oo ay isugu sheegtay inay tahay Andromache of Scythia. Kadibna way garaacday ka hor inta aanay ka afduubin saldhigga militariga. In yar kadib, Neil ayaa miyirsatay oo waxay isku aragtay ayadoo ku jirto gaari ciidan gadaalkiisa dambe. Iyada oo isku dayaysa inay baxsato ayaa haraati isaga furayso dambeedka gaariga. Andy ayaa ogaanayso kadibna joojinayso gaariga. Waxayna ka tooganaysaa madaxa iyo dhabarka weyna sugaysaa inta ay samaynayso soo bogsashada degdega ah. Marka Neil ugu dambayntii indhaheeda kala qaado, Andy waxay u sheegaysaa inay raacdo haddii ay rabto jawaab. Muuqaalka ayaa England nala geynayaa, halkaas oo naloogu soo bandhigayo madaxa fulinta dawooyinka nin lagu magacaabo Stephen Merrick, kaas oo samaynayo bandhig cilmi baarista unugyada STEM. Waxa uu u sheegaa in uu leeyahay tiknoolajiyad awood u leh in ay ciribtirto cudurrada bini'aadamka iyo kordhinta cimriga. Waxa keliya ee uu u baahan yahay waa maalgashi. Kadib markii bandhigu dhammaado, James, oo sidoo kale halkaas jooga, wuxuu Stephen la wadaagayaa muuqaalkii Immortalska ee kooxda afarta ah. Tani waxay ka dhigaysaa mid aad u naxay, sidaas darteed Stephen wuxuu ku amray James inuu soo qabto kooxda sida ugu dhaqsaha badan. Dhanka kale, Andy iyo Neil waxay raaceen diyaarad waxayna u sii jeedaan meel lagu magacaabo Rendezvous, Paris. Neil weli ma aaminsana Andy, waxay u malaynaysaa inay daroogaysay. Si kastaba ha ahaatee, Andy ma hadlayso. Neil ayaa soo xasuusanayso dhaawacii qoorta looga geystay ee ay sida dhaqsada ah uga bogsanaysay. Intaas kadib, Andy way hurdaysaa. Inta lagu guda jiro safarka diyaaradda, Neil ayaa si qarsoodi ah ugu xirxirayso Andy kursigeeda, kadibna duuliyaha ayay baskoolad ku qabanaysaa si diyaaradda loo dejiyo. Way u hanjabaysaa si uu u dejiyo diyaaradda. Marka Andy ay ogaato waxa socdo, qorshe cajiib ah ayay la timid. Andy ayaa qorshe cajiib ah la imaanayso, duuliyaha ayaana dhimasho been ah jilaayo, maxaa yeelay Andy ayaa rasasaynayso duuliyaha. Neil ayaa arrintan la yaabayso. Dhanka kale, Andy ayaa u sheegayso Neil inay diyaaradda kaxayn karto. Si ay u kaxaysana iga fur ayay leedahay xarkaha. Intaas kadib labadooda way dagaalamayaan kadib markay ka furto xarkaha, laakiin Andy waa qof khibrad iyo xirfad leh, halgamaana ah, way ka adkaanaysaa Neil. Waxay ugu dambayntii ku qancisay Neil inay ku biirto kooxdooda, iyadoo tilmaamaysa in aysan hadda ahayn Marines. Markii ay ka soo degeen Paris, waxay soo aadayaan kaniisadda, halkaas oo ay Neil ku arkayso kooxda inteedii kale. Markay casheeyaan, waxay wax badan ka baranaysaa kooxdan sheekooyinkooda. Booker, Neil ka hor wuxuu ahaa kii ugu yaraa ee aan dhiman ilaa qarnigii 18aad, halka Nicky iyo Joe ay wada joogeen tan iyo qarnigii 12aad. Qofka ugu da'da weyn ma aha qof kale, waa haweeneyda lagu magacaabo Andy. Intay sheekaysanayaan, waxay daaha ka qaadaysaa inaysan run ahayn inaanay dhimanayn. Awooddooda bogsiinada ugu dambayntii way joogsan doontaa ayagoon ogeyn. Taasina waxay horay ugu dhacday nin la oran jiray Lacon. Habeenkaas, Neil waxay ku riyoonaysaa riyo kicisay dhammaan kooxdan. Waxay ka sheekaynaysaa inay ku riyootay haweeney ku xiran birta naxashka oo lagu tuuray badda gunteeda. Kooxdan waxay Neil u sheegayaan inay ku riyootay haweeney lagu magacaabo Queen, mana aysan geeriyoon haweeneydaas. Andy ayaa daaha ka qaaday in markii iyada iyo Queen ay isku dayeen inay xoreeyaan dumarka, in lagu eedeeyay inay yihiin sixiroolayaal 100 sano ka hor, kadibna waa la xiray. Andy waxay ku guulaysatay inay ka baxsato xabsigaas, halka Queen lagu xiray naxash bir ah kadibna lagu dhex tuuray badda.
tan iyo markaas waxay ku jirtaa gunta biyaha badda, xaalkeedu waa soo noolaasho iyo dhimasho wareeg aan dhammaad lahayn. Maqalka waxaas oo dhan, Neil oo rafaad ka muuqdo ayaa soo baxday si ay u qaadato wakhti keligeed ah, laakiin waxaa raacday Andy. Markaas koox askar ah oo uu soo diray James ayaa waxay imaadeen kiniisadda. Dhawaaq ayay maqleen, Andy iyo Neil waxay ku soo noqonayaan gudaha kiniisadda, waxayna ogaanayaan in Joe iyo Nicky la kaxaystay, waxay ugu imaanayaan Booker oo dhaawacmay. Waxay ogaanayaan in Booker lagu qarxiyey bam gacmeed, dhaawaciisuna aad buu u darnaa. Taas awgeed waxay qaadan doontaa wakhti dheer si uu u bogsado. Inta uu soo bogsanayo Booker, Andy waxay mid u dilaysaa dhammaan gacan ku dhiiglayaashii. Intaa kadib markay soo noqoto, alaabtoodii bay xirxiranayaan si ay u maraan meel kale oo ay ku dhuuntaan. Dhanka kale, Joe iyo Nicky ayaa loo qaaday England. James ayaa geynaya goobta cilmi-baarista Stephen. Stephen ayaa sharxaya inuu damacsan yahay in uu isticmaalo cilmi-baadhista unugyada asliga ah oo uu ku samayn doono tijaabooyin si uu u fahmo awooddooda dib u soo noolaanta. Waxa uu sidoo kale ka codsanayaa James inuu keeno Andy iyo Booker, halka Nicky iyo Joe loo dirayo dhanka shaybaadhka. Kadib marka la soo mariyo dhammaan tijaabooyinka shaybaarka looga baahan yahay, James wuxuu weydiistay Stephen inuu sii daayo iyaga, laakiin Stephen ayaa diidayo maadaama uu yahay danayste. Dhanka kale, Andy, Neil iyo Booker ayaa ku imaanayo qaab dhuumashaal ah agaarka shaybaarka. Inta uu Booker isku dayayo inuu James ka helo kombuyuutarkiisa, Andy waxay ogaatay inay weli u dhiig baxayso dhaawac hore u soo gaaray. Andy waxay fahamtay inaanay si degdeg ah u bogsanaynin, keligeed ayaa aadayso farmashi, waxayna soo iibsatay sahay caafimaad. Kadib waxay ku soo noqotay gaarigeedii oo waxay qaadanaysaa wakhti ay nafteeda uga dhaadhiciso in la gaaray xilligeeda. Neil oo riyo kale ku soo kacday ayaa bannaanka soo aadayso, halkaa ayay ka heshay Andy oo labadooduba waxay ka sheekaysanayaan qoysaskooda, iyaga oo isku sheegaya xanuunka ay marayaan dadkooda ahayn immortalska. Intaas kadib waxaa nala tusayaa saddexdooda oo go'aansanaya inay soo aadan shaybaarka lagu hayo. Labada kale, Neil ayaa iska diidayso dagaalkan inay ku biirto markay soo dhowaadaan. Waxay sheegtay inay leedahay qoys oo ay doonayso inay hore ula sii joogto. Markan Andy waa ay fasaxaysaa, iyadoo u ogolaatay inay qaadato baabuurka iyo bistoolad. Intaas kadib, Neil waxay u socdaalaysaa dhanka saldhiggeeda. Halka Andy iyo Booker ay soo galayaan dhismaha, halkaas waxay iska hor imaanayaan James. Marka ay helaan isaga, Andy ayaa dalbanayso macluumaad ku saabsan halka saaxiibadeed ku sugan yihiin. Halkaa marka ay marayso, Booker ayaa si lama filaan ah dhabarka uga toogtay Andy. Booker qalad ayuu sameeyey, wuxuu markan qirtay in uu sidan u sameeyey maadaama Stephen uu doonayo inuu sameeyo halka dhimashada looga hortagayo. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu bilaabay inuu argagaxo markuu arkay in Andy aanay bogsanayn. Wax yar kadib, Stephen iyo raggiisii ayaa soo galaya, waxa ay gacanta ku dhigayaan Booker iyo Andy. James wuxuu isku dayaa inuu ka celiyo, maadaama Andy aanay bogsanayn inay geeriyotana suurtagal tahay. Si kastaba ha ahaatee, Stephen uma muuqdo inuu daryeeli rabo, waa nin doonayo inuu jirdilo kuwa aan dhimanayn si aan xad lahayn. Sidoo kale, wuxuu doonayaa inuu dheecaano ka qaado. James waxaa garaacaya ilaalada. Stephen wuxuu kaxaynayaa Andy iyo Booker dhanka iyo shaybaarkiisa, waxaa loo geynayaa saaxiibadoodii kale ayagoo xakamaysan. Dhanka kale, Neil ayaa soo gaadhay saldhigga, laakiin iyada isla markiiba waxay ogaatay in bastooladeedu faaruq tahay. Waxay garatay khiyaamada Booker, maadaama uu hubka asaga soo diyaariyey. Waxay dib ugu soo laabatay goobtii uu James joogay, waxayna wax ka weydiisay waxyaabaha socda. James ayaa markaa qirtay inuu cilmi baadhis ku samaynayay Andy iyo kooxdeeda. Wuxuu kaloo u sheegayaa dhammaan waxyaalihii wanaagsanaa ee aadanaha u qabteen. Wuxuu ku fikiray inuu adduunka ku caawiyo isagoo soo qabanaya, laakiin wuu ku qaldanaa arrintaas. Hadda oo uu qalbigiisa isbedelay, waxa uu go'aansaday in uu Neil ka caawiyo sidii ay u badbaadin lahayd Andy iyo kooxdeeda.
Waxa uu Neil u sheegayaa waardiyaasha iyo shaybaarka cilmi-baadhista ka socoto halka uu kaga yaalo dhismaha ka soo ah dabaqa halshanaad. Waxa uu sidoo kale u dhiibay Master Card, kaas oo lagu geli karo albaab kasta oo dhismaha ah. Neil ayaa is-hubaynayso halkaas ayay ka bilaabaysaa dagaal ay ku qaadayso waardiyaashii, gudaha ayay u galaysaa xarunta. Isla markiiba waxay soo gaaraysaa qolkii lagu hayay asxaabteeda. Markaan shantii mar kale ayay wada joogaan oo waxay aadayaan dhanka Stephen oo ilaaladiisii isku hareereeyey. Kooxdu markan waxay si gaar ah u ilaalinayaan Andy oo dagaalami karto balse aanan u bogsanayn sidii hore. Waxay ugu dambayntii galeen xafiiska Stephen, laakiin kama ay helin isaga halkaas. Isla markaa waxa ay ogaadeen wiishka oo hoos u socda, waxaa israacaya Booker, Nicky iyo Joe dhanka jaranjarada, halka Neil ay u harayso Andy. Si kastaba ha ahaatee, waxaa si khiyaano ah ugu hor imaanayo Andy iyo Neil. Ninka lagu magacaabo Stephen wuxuu qori ku qabanayaa Andy. Markan waxay u muuqatay in Stephen uu ku dhow yahay inuu guulaysto, maadaama uu Andy dili karo, balse Neil iyo Andy waxay la yimaadeen qorshe. Waxay samaynayaan khiyaamo la mid ah midii diyaaradda baaq cajiib ah. Neil ayaa rasaas u ridayso dhanka Andy si ay u mashquuliso Stephen, sidaas waxaa Janice ku helayo Andy oo ayadana rasaas u soo ridayso dhanka Stephen. Intaas kadib Neil ayaa ku soo boodayso Stephen oo waxay kala boodaysaa dhanka daaqada dabaqa halshanaad, waxay ku soo wada dhacayaan dhulka. Muddo yar kadib, Neil ayaa si tartiib ah u bogsatay oo soo noolaatay, halka Stephen uu halkaas ku geeriyooday. Intaa kadib, kooxdan ayaa goobta iskaga fogaanayso, kadib meel ayay isugu imaanayaan, waxayna ka wada hadlayaan masiirka Booker oo qalad hore u galay. Muddo kadib, Andy waxay si gaar ah ugu sheegaysaa Booker in go'aan laga gaaray. Kooxdu waxay ku xukuntay ninka lagu magacaabo Booker kelinimo 1 ka sano ee soo socoto. Andy iyo Booker ayaa markaa wadaagaya dareen ismacsalaamayn ah, ogowna labadan in aanay is arki doonin mar dambe. Intaa kadib, xubnaha kale ee kooxda ayaa la kulmaya James, kaas oo u sharaxaya cilmi-baaristiisa iyo waxyaabaha ka soo kordhay. Wuxuu u sheegayaa in badbaadintii ay hore u soo sameeyeen inay dadka wax badan ka caawisay. Andy waxay faraysaa inay ilaaliyaan sirtooda iyo hawlgalladooda. 6 bilood kadib, Paris waxaa ku laabtay gurigiisa Booker oo niyad jabsan misane sakhraansan.